munaasabadan oo ahayd mid xilalka ay ku kala wareegayeen gudoomiyihii hore iyo kan cusub ee degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. munaasabada xil wareejintan waxaa goobjoog ka ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. ugu horreyn waxaa hadal jeedinta qaatay mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka socday ee munaasabada goobjoog ka ahaa iyaga oo duqa Muqdisho ku amaanay doorka horumarineed ee maamulkiisa uu ka wado gobolka Banaadir. xildhibaan qaranka ah inaan ka qayb galayo xaflad xilka loogu kala wareejinayo si waafaqsan sharciga iyo maanka laba gudoomiye oo gudoomiyena maanta aanu si wadacayno aan leenahay gudoomiye xilkii ah intaad haysay iyo waxaad qabatay waa lagaaga mahadcelinayaa. gudoomiyaha cusubna waxaan leenahay ku soo dhawow bulsho aan aqoon u leeyahay dheeraada ilbaxa ah abaabulan u diyaarsan inay ka shaqeeyaan dalkooda. reer Dharkeenley intii aan ka maqnaa idaacadan kala socday intaan jooganana goobjooga waxaan rabaa inaan meeshan ka cadeeyo aniga reer Xamar Jajab aan ahay. waxaan maanta idin keenay gudoomiyahaygii Guhaad. waxaan ka marxaati furayaa inuu yahay nin dhalinyaro ah, nin firfircoon, in Dharkeenley ay aad u nasiib badan tahay. gudoomiye Guhaad degmada Xamar Jajab howl aad u culus oo ka soo qabtay. wuxuu database geliyay dadka degan oo dhan waxa ay yihiin wax kasta. waxaana kala shaqaysay wasaaradda qorsheynta. waxaan maanta ballan qaadayaa gudoomiye Guhaad sidii Xamar Jajab aan kala shaqeynay anoo ku hadlaaya magaca wasaaradda qorsheynta inaan u keeni doono hadiyadii aan horay u siinay degmada Xamar Jajab mid la mid ah insha Allah. Abuukar Axmed Cadow gudoomiyihii hore ee degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ayaa mahadcelin ballaaran u jeediyay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo shacabka degmada Dharkeenley sida ay ula shaqeeyeen inta uu xilka hayay. waxa uu sheegay in wax badan ay qabsoomeen. waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan u mahadceliyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho muddadii aan la soo shaqeynay wanaagii iyo quruxdii oo nagu la soo shaqeeyay garb istaagii talooyinkii dhimrintii iyo hadalkii qurxanaa oo mar walba aan kala kulmi jirnay. waxaan kaloo rabaa inaan ugu mahadceliyo inuu jaanis ii siiyay muddada intaas leeg inaan ka shaqeeyo degmada Dharkeenley oo shaqada inta aan qabtay ama aan qaban karay aan qabtay inuu jaanis ii siiyo ayaan rabaa inaan ugu mahadceliyo. waxaan kaloo rabaa inaan ugu mahadceliyo maamulkii degmada Dharkeenley oo si wanaagsan oo qurux badan markaan imaanaynay ii soo dhaweeyay isla markaasna ila shaqeeyay si qurux badan oo hagar la'aan. waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada ammaanka oo runtii shaqo adag ee qurux badan halkan ka qabtay oo ugu horeeya taliyaha qaybta galbeed gaashaan la dhexe Xundubey oo runtii aan dhihi karo degmadan markaan imaanaynay waxay aheeday degmo kala qoqoban oo meelaha qaar aan laga ogoleen wax la yiraahdo dawladnimo oo qofka askariga tuutaha booliska wata aan la rabin inuu tago oo ciidamo Mooryaana ay joogeen. waxaana ku faraxsanahay maanta inaan ka tagayno oo aniga shakhsiyan aan ka tagayo degmadii meel walba oo kamid ah si xor ah ay ugu shaqeynayaan ciidamada amniga iyo maamulka degmada guud ahaan. gudoomiyaha cusub ee degmada Dharkeenley Guhaad Sheekh Xasan ayaa isla dhankiisa ballan qaaday in uu si laba jibaarayo shaqada uu ka bedelay gudoomiyihii hore ee degmada Dharkeenley. runtii waxaan marka ugu horeysa u mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo si kalsooni leh igu idmaday in aan ka shaqeeyo degmada baaxadda weyn ee Dharkeenley oo runtii aan ogahay degmadii aan ka soo shaqeynay in Shanjibaar ay u dhiganto taas oo la macna ah in shaqadii hore shaqo ka badan ka saacado badan ka waqti badan ay sugayso. waxaan rajeynayaa kalsoonida duqa magaalada Muqdisho iyo tiinaba anoo kaashanay hanka leega leeyahay iyo meesha laga filayna wax gaarsiiya duulaa yiraahdo. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalkay saaxiibkay gudoomiyihii hore ee degmada Dharkeenley
abukar axmed cadow oo muddo si dhow aan wada shaqaynaynay aan ogahay degmadan waqti badan inuu geliyay waxaan rajaynayaa halka uu soo gaarsiiyay in aan ka qaadno oo aan meel kale aan geyno insha Allah taala maadaama maamulku yahay qor isku dhiib waxaan rabaa saddex arin oo kaliya inaan idin sheego marka laga tago adeegyada bulshada iyo amniga iyo howlaha waajibka ay na sugayaan waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo duulay idinkana ay igala shaqeysaan isdhexgalka bulshada waxaan rabaa shanta waax ee degmada Dharkeenley qof kastoo degan inaan isnaqaano idinkana ay istaqaanaan taasoo macnaheedu tahay meel walba aad joogtaan in si dhow la iskula shaqeeyo oo aan isbaranno idinkana isbarataan oo isdhexgalkaas yimaado insha Allah taala waxaan kaloo insha Allah taala ka shaqeyn doonaa adeegyada asaasiga ah ee degmadan ay u baahan tahay maadaama degmadan ay aad u weyn tahay waxaan ogahay oo waajibaadka ugu horeeyna ka mid ah in ay hesho adeegyo bulsho oo aan si dhow uga shaqeyno marka laga tago caafimaadka iyo waxbarashada waad ogtiin howlo kale waaweyn oo adeegyada bulshada oo maqan ama gaabisa jiro taasna inaan ka shaqeynaa rabnaa duulay yiraahdo عمر محمود محمد عمر فريش قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقالة مقدشو أيها دنكي تتلمامي إن لبدا مسؤول أي شقو وناكسان أي سوى قبتين وحاون أمهد عليه قدوميه هوراء دقمة دركينلي يستقو دنكا كلا دردارا أجيديه قدوميها عصوب دقمة دركينلي قهاد شيخ حسن دقمة دركينلي ودقمة آد وبلشة بدن آد وبلارن باحد له آد ونبض جعل الدين نبض لوايانا اسكت الشتا انتان كاقان waxaan leeyahay reer Dharkeenley sidii ay isugu tashan jirteen isugu tashada adinkoo waliba haysta dawlad heer federaal ah haysta maamul heer state ah ama heer dawlad goboleed haysta gudoomiye dhalinyaro ah oo firfircoon oo ayaan ku cusbayn mas'uuliyadda heer degmo runtii muddadii sanadka ahayd oo aan jooga maamulka gobolka Banaadir waxa aan ku bartay dad fara badan waxyaabo badan oo aanan baran lahayn haddii aanan fursadaas heli lahayn dadka aan ku bartay halkaas waxaa ku jiray dad aad u firfircoon oo muujiyay karti iyo dadnimo iyo hufnaan intaba oo uu ka mid yahay gudoomiye guhaadka hadda Dharkeenley lagu soo magacaabay waxaan rabaa gudoomiyaha cusub ee Dharkeenley haddii uu helo bulsho garab taagan oo la shaqeysa waxyaabaha hadda uu sheegay iyo ka sii badan inuu xaqiijin karo ayaan aaminsanahay biidnillahi alkariim waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo gudoomiyaha sida aan uga warbixiyay inuu yahay uu la iman doono biidnillahi alkariim howlkarnimo iyo waxqabad ku faraxdaan inaguna muddada uu xilka hayo anaguna aan xilka hayno intaan halkaan keeno uga matagi doonee garabkiisa ayaan taagnaa doonaa oo si buuxda ayaan ula shaqayn doonaa haddii alle ibraahim xaaji yusuf warbaahinta gobolka